بورا صورة ودير كان سومالي قبطنا سلع ويمرتاح حتى سحري متي عبرتنا واسوني هدو جيرو سبن حمام وحاحي قبلي سمام سكساقنا وردمان قالوا السمدا جيرو salkuna warorusayay ayaan saba kula dhasho abkaygu masuuli karo samada calanka kula dhan ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw bilaha soonka ibaray daruuraha sixirka iyo intan saxalkani dul iman سماره وحوها نفرها مذوب وسمير سببت فرارقيو انت صعفن سفي عدد ولها عذاب وكاسسان الله 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 صلسي بالشذا سوكييني سينجيغا كاميدا هيسانو واقوت كالا سوه لحي سارير لغو ودا كمان أنا ترسلو أهو هرقي سيسابا وانا سيراد بحنو أهو وحا حال لي سوري قيقو نبت ساغيو سارير تدكو كل دي وحاي سوغينا هلاي بورا سورة باودي عن كان الصومالي نيمو قبطونا سيدي وين مرتاح حتى نسحاني ماتيرو وحا حال لي سوري قيقو نبت ساغيو سارير تدكو كل دي وحاي سوغينا هلاي بورا سورة باودي عن كان الصومالي نيمو قبطونا سيدي وين مرتاح حتى نسحاني ماتيرو وحا حال لي سوري قيقو نبت ساغيو سارير تدكو كل دي وحاي سوغينا هلاي بورا سورة باودي عن كان الصومالي نيمو قبطونا سيدي وين مرتاح حتى نسحاني ماتيرو maanta ujeedada shirkan aan isugu imaanay kulankan wada tashi wuxuu daaran yahay diyaarintii RRB-da waxa la dhaho ama Regional Reconciliation Plan ama qorshihii dib u heshiinta Jubbaland waxaan idinla wadaagi doonaa National Reconciliation Plan oo ah dib u heshiinta qaran hanaanka dib u heshiinta qaran heer qaran markaan idin sharaxno insha Allah midii heer qaran waxaan isu qaybin doonaa gurubyadaas oo tiirarkii shanta tiir ee uu ku taagnaa hanaanka dib u heshiinta qaran group kasta oo ka doodi doono insha Allah tiir ka mid ah tiirarka shanta tiir oo markii aan barnaamijku u galno insha Allah walaalkeen Farxaan uu noo dul istaagi doona kadib waxaa la rabaa tiirarkaas marka aad akhrisaan dul istaagtaan tiirkii ama activity-dii hawshii dib u heshiinta ama dib u heshiisiinta heer qaran in aad qaadataan markaad mid wad qaadan kartaan hadday qusayso haddaad isleedihiin baahida ay Jubbaland u qabto dib u heshiinta tiirka wax uu ka tarayaa waad qaadanaysaan
haddii ay u baahan tahay wax ka bedel waad ka bedeleysaan oo waxaad ku salaynaysaan baahiyaha dib u heshiisiineed ee ka jira deegaanada Jubbaland. haddii aad wax kale kusoo kordhinaysaan oo aan meeshan ku jirin oo ka maqan oo ay Jubbaland u baahan tahay ayadana waad ku daraysaan. waxa ugu muhiimsan oo maanta dalkeenu u baahan yahay aan ka shirayno oo ah dib u heshiisiin ka sheekayn mayno dalkeena baahida uu qabo waxaan ku raahdaa dib u heshiisiin hadday noqon lahayd in dad ahaan loo heshiiyo hadday aan lahayd in waxaan ku raahdaa horusocodka dowladnimo lagu heshiiyo hadday noqon lahayd maxaan ku raahdaa waxyaabo kale oo fara badan in laga heshiiyo marka la eego dhibaatooyinkii waaweynaa ee dalkeena soo maray runaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku raahdaa gaar ahaan aniga iyo maxaan ku raahdaa hay'adda NIS oo aan matalayo aad baan ugu faraxsanahay maantayto in halkaan magaalada Kismaayo aan u fadhino sidii looga tashan lahaa qorshaha dib u heshiisiineed ee Jubbaland maxaan ku raahdaa horumarintiisa iyo ka shaqayntiisa iyo iskaashiga runaantii waxa maanta aad iyo aad farxad weyn u ah in khubaro ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ee heer federaal iyo khubaradii wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxdoodii ay kulli wada joogaan oo ay halkaas maaragtay coordination iyo wada shaqayn ay aad u wanaagsan aad u qurux badan ay ka muuqato waayahan dambe waxa la yiraahdaa dib u heshiisiinta ayaa u baahan in loo heshiiyo haddii aan iyada loo heshiin oo aan iska kaashan lagama miro dhalin karo soo maahan marka runtii wax lagu farxo weeye as a team in maaragtay loo wada shaqaynayo oo si maaragtay mustaqbalka qorshihii dib u heshiisiineed loo dhigo waxa aad iyo aad u wanaagsan idinkana ka qayb qaadanaysaan runtii halkan waxa fadhiya dad khubara dad ka socda maxaan ku raahdaa wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxa fadhiya maxaan ku raahdaa dhalinyaro waxa fadhiya aqoon-yahano waxa fadhiya rag iyo dumar bale dhalinyaro iyo waaliyeed bale marka runtii waa wax wanaagsan bulshada dhan baad matashaan marka maantayto maskaxdiina ayaa marti loo yahay sidii maaragtay loo dhisi lahaa dib u heshiisiin qorshe dib u heshiisiineed insha Allah saad la socotiin wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland baryahan waxay waday hawlo ku saabsan diyaarinta macluumaadka shaqo dhinaca dib u heshiisiinta marka hadduu ilaahay yiraahdo maanta waxaan meeshaas u imaanay lambar koow inaan marka koowaad aan fiirino hanaankii dib u heshiisiinta qaran kadibna aan develop gareyno ama aan bilowno kii heer state-ka qorshihiisa baahiyaha ay ka ama shaqooyinka aan ku dari doono way noo leeyihiin oo waa bilow maanta waan bilaabayna waan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda inay nagala soo qayb qaadayso aan bilowno hanaankii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland inaan isla heshiino labada qorshaha qaran iyo kan heer state marka ujeedada ugu muhiimsan waa taas ayada ah waan idinka mahadcelinayaa arrinta inaad nagala qayb qaadataan aan idin xubnay waxaa weeyaan number koow in aad mudan tihiin in lagala tashado barnaamijka asaga ah inaad tihiin dadka elite-ka ahaa markii Jubbaland heer state oo lagala tashan lahaa inaad magaranaysaa aad soo saartaan wixii muhiim noo ah hanaanka dib u heshiisiinta qaran shanta tiir uu ka kooban yahay maxaa annaga maaragtay aan ka qaadan karnaa inaan dhisno keeni waan ognahay maalintii hadda laba isbuuc ka hor waxaan sameynay qaridadeynta khilaafaadka jubbada hoose waxaa hore loo soo sameeyey khilaafaadka ka jira gobolka Gedo
khilaafaadka imaan kara ee gobolka jubbada dhexe markii la xoreeyo kadib inaan isku darno wixii baahiyaha meeshaas ku jirana aan qorshaha Jubbaland ku darno oo wax cad oo magaranaysa la fulay sanad walbana aan ku sameeyno dib u eegis marka muhiimadda koowaad shaqooyinka waa bilow wasaaraddeena waa soo dhaweynaynaa xolaad soo dhawaada inaad marka horeeto dadkan waa dadkii lagala tashan lahaa arrimahaas ayada ah marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin national reconciliation ayaa la sameeyey Soomaaliya leedahay sidaad saak warbixintan ku siiyey 17kii buu soo bilowday caqabado fara badan baa jira waddanka dhexdiisa dabcan wax badan baa fashilmaya ama wax badan baa sidii la rabay aan u dhacayn laakiin halka uu hadda maanta taagan yahay ee ah in dowladkii la bilaabo dowlad goboleedka dabcan waa laga maarmaan laakiin ereyada meesha ku qoran markii la fiiriyo qodobka koowaad oo meesha ku qoran waa hal saddex hal waa macnaha hal dhibic hal qodobkaasi waa federal level waa ka gudubnay oo golayaasha qaranka ayuu quseeyaa inta badan usoo bandhigista hanaanka dib u heshiisiinta qaran iyo qorshaha dib u heshiisiinta qaranka dowlad goboleedyada iyo gacansiinta dejinta qorshe dib u heshiin heer dowlad goboleeda dabcan in wixii la soo daadejiyo oo dowlad goboleedyada ay gaaro waa sax waa soo dhaweynaynaa waana saxna waa isku raacnay su'aalaha ku jira oo markii gudihiisa la galo su'aalaha imanaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleed si ay ugu heshiinayaan iyo qaabkii u marayaan iyo iyagii u taallaa oo inagu dee waxaynu nahay hadda shacabka inkastoo aan ka xumayo saaka dadka meesha isugu yimid way barin yaa dowladda u shaqeeya yaa bulshada reedka ka yimid yaa ma kala garanayo laakiin dhalinyaro meesha isugu timi wasaaraddu yartan ka soo qaadaya xataa haddii wasaaradaha ka socdaan qodobkana waan soo dhaweynay qodobka kale ku xigo saddexda waxa waaye magacaabista guddiyo nabadsidayaal ah kelmaddaas af soomaaligan oo ku cusub tahay nabadsiye laakiin waan qaadanaynaayo waxaa laga yaabaa si toos in loo turjumay oo luqad kale ku qornayd oo culimmadii dhaqankii dhallinyaradii iyo haweenkii ganacsatadii iyo bulshadeennii baa ku jirtay ama dadka saamaynta kule bulshada dhexdeeda isagana waa saxnay qabashada socdaal nabadeed oo lagu tegayo dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka iyaduna waa muhiim waa soo dhaweynaynaa waa arrin fiican shan isu keenidda imaamyada khadiibyada masaajidada waaweyn ee dalku marka iyada markii taa la fiiriyo siiqadii qoranta waxaa ka fiican culimmadu iyagaa siyaalo kale u dhisan iyagaa isdiidan waxbaa ka dhexeeya marka in la dhaho culimmada Soomaaliyeed oo la isku raaco iyaga la isku daro deegaankaas markii la tago sidii la rabaa loo formula kasta loo samaysan karo laakiin qolooyin waa ururey leeyihiin dhisan oo majlis hebel iyo mu'asasa hebel iyo qolo kale dariiqo kale marka iyagana culimada inaan saas u dhahno doorkooda la muujiyo culimadu waxay ka mid yihiin go'aan gaarayaasha ugu muhiimsan ee bulshada dhexdeeda qodobka lixaad wuxuu sheegayaa qabashada shirweyne qaran ee halabuurka Soomaaliyeed si loogu tababaro ka qaybgalka noqoshada ololaha dib u heshiisiinta dalka dabcan qolooyinka halabuurka ah nigana meesha daynayay habkii Soomaalidu isu gaarsiin jirtay suugaantii wax sheegistana waa de muhiim waaye qodobka toddobaad oo qabashada tartamada dib u heshiisiinta naftirkeeda markii la heshiinayo aniga ninka markii heshiinayno waxaan u baahanahay damaanad qaadan ku heshiino yana damaanad qaadan inaan heshiino ninkan dadka heshiisiya shalay ay leeyihiin soo wada dhigteen constitution keena Soomaaliya paralyze way 12 sano oo qabiyo soo heshiin karnaa marka dib problem ku xawaayo constitution ka in la dhameystiro sharciyada waddanka la diyaariyo qodobka kale oo culus waxa uu dib u heshiisiinta caqabada ku ah waa Soomaaliland waxyaalo badan baynu u baahan laakiin marka laga hadlayo in la heshiisiyo bulshada Soomaaliyeed ee meel wada joogta marinay u baahan tahay political reconciliation waa lagu fashilmay Soomaaliya totally hadalka ay qoraanigi waxsiin iyo heshiis dib u heshiisiin iyo dib u heshiin marka dib u heshiinta waxyaalo badan ku imanaya waxa asal u noqonaya constitutional and political obligation waxa asaas u noqonaya marka waxay u baahan tahay barnaamijka markii la soo diyaarinayay habkii uu maray consultation-ka laga bixiyay policy-gii lagu sameeyay xilligii dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ay gudbisay waxaas dhanaan attach ku ahayn documentiga heli karno oo aan wax ka dhihi karno
waxaan u malaynayaa ilaa iyo anigu ma tirin karin inta jeeraan ka qayb gala shirdi heshiisiineed qof halkan fadhiyo sixi karaa ma jira meelaba hawshaa baad gashay ma sixi kartaan dadka dhan waa la tababaray waxna kama soo bixin waay micnuhu waxay tahay interestigeena ama rabitaankeenna dadeed ama ummadeed inaguma abuurna inaynu ka gudubna sharci darradeena waa maxamed laakiin sharciga darrada la qabsanay gaariga saar rabaan u wadanaya guriga meesha rabaan ka dhisanaya ciddaan rabaan caynaya ciddaan rabaan iska celinaya taas waa waxa la rabaa in laga gudbo oo bulsho nabadeedaan noqono waxaa kaleeto meesha ku jirto mar walbo la isdagaalo ama mar walbo dib u heshiisiin la sameynaayo waxa oo heshiisiinta ama wax walba loo sameeyo waxaa waay ragga wuxuu dagaalka ka kacayaa dumar heshiisiinta nimanka odayaasha meesha kusoo kala goosanaya waxay rabaan waa lasoo kala tegaya labada islaam oo dariska ahaan way isdagaalsan inta walban wiilkay dhashay colaada ku reebaysaa marka taasaa haweenkaan ku hayaa wasaaradaada ee iska qaado qodobka kaleeto oo ah سمعتين شرعياتك أو جدي جلو سمعنا أيضا وخمسة جرام خمسة جرام هواي expert consultant team نقوله وعندنا كمان ردد الرياض سرعة إنه مصدر أو برنامجها ستكتب خاطر سيد الله ده ديارين كل نقول كأيوحيان دينا الديارين جدي نوع عسل مصدر أو خمسة مصدر تشربونه عدن لكن كصومالي كالجركي وحي لو صبرنا مر ولبو لو مديسيه odaha naqato dhalinyarada naqato haweenka naqato kii dhowgolka camalki ku jiro dhan way ku midaysiin meesha mid kale shirweyne siyaasadeed oo ku jira hadana meelma kama marna laba Soomaa shirweyne urur bulshada way ku jiraan hadana kama marna waa specific ay leeyihiin ma jirto waxa qof kasta waa midaysiya rag iyo dumarba marka shirweyne hadana qurbo joog in la qabto way ku midaysiin hadana afraad tan shanaad marka annaga soo yeeranayso mar intaan la qaban karo facilitator lama baahno laakiin waa soo yeeranay waxaan ku dhahay shirweyne ay ku midaysan yihiin dhalinyarada iyo haweenka reer Jubbaland ka dhignay toddoba qolo qorna laba isku darnay dhalinyaro waxa israacina iyo haweenkii waxaan ku darnay booskooda waxa ku bedelay in la shirweyne ganacsato in lagu wada ama taqaana ku darnay wax laga saaray ma laha ka bilaabo qodobka 311 oo tayeynta iyo taabagelinta unugka u xilsaaran xalinta iyo ka hortagga khilaafaadka koomaan geliyey tayeynta iyo taabagelinta unugga muxuu noqon karaa waxaa ka wanaagsanaan lahayd inay tahay malaha aqoon-yahano xirfad lehoo loo saaray arrintaas inay tahay marka aniga unuggaas wax kale taa halkaas aan ku qaatay tii kale diyaarinta iyo qabashada tababaro ku saabsan xalinta khilaafaadka ee ku dhisan diinta dhaqanka iyo waayo aragnimada howlwadeennada wasaaradda haddee wasaaradda aniga marka waxaa hoosta ka raaciyey dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda kaliya lagu ekeysiiyey macnaha unitkaas asaga ah marka waxaa u gudbayaa muxuu ahaa unit 313 ufududaynta dadweynaha helitaanka cadaaladda taa duduubkeeda lagu qaadanaya maxaa yeelay waa wax madaafaana weeye abuuridda iyo fulinta howlaha nidaamka habdhaqanka habka dadban habdhaqanka xalinta khilaafaadka ADR intaas kaliya ka bedelay laakiin sidiisa kale waa ku qadanay 315 diyaarinta xeerarka iyo habraacyada xeerka dhulka iyo xalinta khilaafaadka dhulka ee maamul goboleedka Jubbaland muxuu ahaa ayadana sideedaan ku qaadanay maxaa yeelay xalinta khilaafaadka dhulka iyo kulli wuxuu dhan waa iska dhibaato iska taagan oo mar walba hadda halkan guddi baa laga sameeyaa lahaa marka